galmudug ayaa xabajoojin ka dhaqangelisay deegaanka dhagtuur ee koonfurta gobolka mudug kadib markii shalayto siyaabo kala duwan loogu dilay 3 ruux oo xoolo dhaqato ah mas'uuliyiin iskugu jirta maamulka gobolka mudug xildhibaano ka tirsan galmudug saraakiisha laamaha amniga galmudug oo ka kooban daraawiishta iyo booliska odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ganacsatada labada dhinac ee dilalku uu dhexmaray ayaa ku baxay daminta xiisada dagaal ee halka ka taagneed kuwaas oo ku guuleystay baajinta in mar kale dib halkaas uu ka dhaco dhinacyadan oo maanta ku kulmaya duleedka deegaanka dhagtuur ayaa waxay wada gaareen xiisadaas in la joojiyay markii hore isla markaana maanta oo khamiis ah ay ku ballameen shirweyne ka dhici doona halkaas gaar ahaan deegaanka shaqaaqadu ay ka dhacday kaas oo lagu dhameynayo dhibaatadii ka dhacday deegaanka ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maalinkii koowaad waxay isku dayeen in ay ku baxaan dhacdaas inkastoo dagaal beeleedyadaas la joojin waayey maadaama beel walba ay doonaysay inay midda kale ka argudato maalmihii ugu dambeeyay deegaanada maamulka galmudug waxa uu ku soo badanayay dagaal beeleedyada dhex maraya ciidamada kala dagaal beeleedyada dhex maraya maleeshiyaadka kala duwan ee halkaas wada degan maadaama 11 qabaa'il ay degaan galmudug